Waan dhamaan daawadayaal barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha Jubba waxaanu ku soo qaadan doonaa mahad salaad ayaa si la yaab leh uga hadlay qaraxii lagu dilay Allahu naxariistay Cornel Bakal Koke madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo wada qorshe uu isaga horkeenayo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xilli ay sii weynaanayso khilaafka u dhaxeeya Garowe iyo Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wali wada dalxiiskiisii isagoo si lama filaan ah uga dagay magaalada Riyadh qodobadaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha Jubba balse intaanu barnaamijkeena guda galin fadlan sii share gareeya barnaamijkeena adigoo isla markaana ku sheer garanaya asxaabtaada baraha bulshada haddaad barnaamijkeena ku cusub tahayna fadlan ugu soo biir adigoo subscribe dhahaya mahadsanidin aanu ku bilownay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaa tacsiid u diray qoyska qaraabada saraakiisha xubnaha hay'adda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo uu ka shahiiday marxuum Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bakal Koke oo ahaa taliyihii NISA ee gobolka Gado kaasoo ku geeriyooday qarax ka dhacay duleedka degmada Luuq Mahad Salaad ayaa yiri sidatan Bakal wuxuu shahiiday isagoo xaq ku taagan naftiisana u hibeeyay sidii dalka iyo dadka looga dulqaadi lahaa cadawga khawaarijta ayuu yiri taliyaha Mahad Salaad ayaa isla markiiba amray in qaybta dambi baarista ee hay'adda NISA ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan kiiska geerida taliya Bakal waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalka dalka looga ciribtirayo khawaarijta laguna bartilmaameysanayo horjoogayaasha khawaarijta uusan joogsan doonin xanuun kasta oo soo gaara geesiyaasha u taagan difaaca dadka iyo dalka tani ayaa imaanayso iyadoo ay jiraan shakiyo ka dhan ah ugaarsiga lagu hayo saraakiisha uga cadcad dhinacyada ciidanka amniga iyadoo horey loogu beegsaday miino lagu aasay waddada dhankeeda gawaari ay la socdeen taliya qaroole iyo saraakiil kaloo badan haddaba waxaa shakiga keenay ayaa ah sida ay macquul ku tahay in la beegsado keliya hal gaari oo ay saaran yihiin saraakiisha ma nasiib ayay ahayd in al-shabaab ay beegsadaan hal shakhsi ah mise al-shabaab gudaha ayaa laga hagayey ka hor weerarada waayo hal weerar nasiib waa la dhihi karaa balse 5 ilaa 6 weerar ayay al-shabaab ku beegsadeen si shakhsiyan ah kolinyo gawaari oo ay kala baxeen saraakiil muhiim ah waxaa cad in al-shabaab aysan haysan tiknoolajiyadda intaa la eg balse waxaannu ka dhuursugaynaa in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo weerarada guraacan maalin dhanka kale madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa lagu wadaa inuu toddobaadka soo socdo tago magaalada Garowe ee caasimadda Puntland madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa shalay gaaray magaalada Garowe halkaasi oo imanka wada hadallo kula leeyahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni madaxweyne Laftagareen iyo wafdigiisa ayaa maalmo joogi doona magaalada Garowe isagoo kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda ugu sarreysa dawladda Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayay tirin madaxtooyada Koonfur Galbeed dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ayaa lagu micneeyay iskaashi ay yeelanayaan dawlad goboleedyada dalka sida aan xogtu ku helnay talaabadan ayaa imaanaysa xilli dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Deni ay ku kala kaceen fadhi ay ka yeesheen qadiyadda Koonfur Galbeed gaar ahaan doorashooyinka Deni ayaa la sheegay inuu Xasan Sheekh xilligaasi ka dalbaday inuu joojiyo dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Laftagareen ee mucaaradka Koonfur Galbeed ka wada Muqdisho taasoo uu Xasan Sheekh ka diiday maadaama labada dhinac ay wada hadalkooda ku jireen arrimo badan oo xasaasi ah haddaba wargeyska maalinlaha Jubba ayaa helay xog ah in maalmihii la soo dhaafay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Deni ay yeesheen kulan albaabada u xiran yihiin kulanka waxaa looga wada hadlay khilaafka soo kala dhaxgalay Garowe iyo Villa Soomaaliya toddobaadadii ugu dambeeyay ayaa xiriirka labada dhinac gaaray meel xun oo ismariwaa ah Saciid Deni ayaa inta uu socday kulanka ku eedeeyay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ballandaro iyo inuu uga baxay ballamo dhex yeelay labada mas'uul madaxweyne Deni ayaa soo jeediyey in Villa Soomaaliya ay fulisay ballamo ay horey u gaareen kuwaasoo kale ah 3 qodob in Saciid Deni loo xiro qaadka taga gobolka bari ee ka yimaada Kenya in lagala tashto xilalka heer federaal ee loogu magacaabayo siyaasiyiinta ka soo jeeda Puntland 3 in saldhigga sutaga Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya uu isaga hoos yimaado oo uu noqdo project u gooni ah Puntland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa ku adkaystay in uu ogol yahay laba ka mid ah dalabka madaxweyne Deni balse waxa uu ku xiray in Deni uu joojiyo dagaalka siyaasadeed uu wado iyo xulufaysiga siyaasadeed ee dawlad goboleedyada sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iska diiday in saldhigga sutaga Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya uu noqdo project u gaar ah Puntland isagoo sheegay in halkaas lagu tababari doono qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka balse Saciid Deni ayaa dhankiisa sheegay in Puntland ay u taagan tahay dhowrista federaalka ayna horay uga diideen madaxweyne Farmaajo in Puntland yimaadaan ciidanka amar qaata dawladda dhexe sidaa darteed kama aqbali doono Xasan Sheekh Maxamuud inuu baalmaro sharciyadeena ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Riyadh dalka Sacuudiga halkaasoo si diiran loogu soo dhaweeyay madaxweynaha ayaa ka qayb galaya shirka dalalka Carabta iyo Shiinaha kaasoo looga hadli doono iskaashiga iyo horumarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in shirka kadib uu kulan gaar ah la qaadan doono madaxweynaha dalka China Xi Jinping oo ka qayb galayo shirka u dhaxeeya Shiinaha iyo dalalka Carabta socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalkaasi Sacuudiga uu ku gaaray ayaa noqonaya kiisii 19aad isla bishan
waxaana la filayaa inuu u duulo dalka Maraykanka oo uga qayb galo shirka Maraykanka iyo Afrika oo bartamaha bishan loo ballansan yahay. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha Jubba. haddaad barnaamijkeena ku cusub tahay fadlan ugu soo biir adigoo isla markaana subscribe dhahaya. mahadsanidin anigoo ah Ismaaciil Kulmiye iyo bahda wargeyska maalinlaha Jubba waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. nabadeen.